wafdi heer sare ah oo hogaaminayo wasiir ku-xigeenka macdanta iyo biyaha Somaliland ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay degmada Dhahar sida uu faafahinta warkan uu ku eegay wariyaheena Siciid Tiij. wafdi ballaaran oo uu horkacay wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo biyaha Somaliland mudane Cabdisalaan Maxamed Xasan oo dhawaanaha socdaal shaqo ku mariyay gobolka Sanaag taasoo ugu kurgalaya xaaladda deegaanada Sanaag. wafdigan ayaa ka soo kicitay caasimadda Somaliland ee Hargeysa ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Hadaaftimo waxaana boqolaal dadweyne iyo gaadiid ahi wafdigan kaga hortageen duleedka magaalada Hadaaftimo waxaana madashaasi uu wasiirku mid ugu gacan qaaday dadkii soo dhaweynayay waxaana soo dhaweyntaasi ka hadlay qaar ka mid ah salaadiinta iyo cuqaasha deegaankaasi oo sheegay inay wafdiga iyo wasiirka ku soo dhaweynayaan gacmo furan. bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo Suldaan Xasan Ali Jibriil iyo usimadii iyo odayaashii iyo cuqaashii iyo guurtidii waxaan ku soo dhaweynaynaa Hadaaftimo ugu soo dhaweynaa wasiir ku-xigeenka macdanta iyo biyaha Cabdisalaan Maxamed Xasan baan ku soo dhaweynaynaa oo aan ku soo dhaweynaynaa dadkan aragtaan oo badan oo reer Hadaaftimaana uu soo baxay si uu soo dhaweeyaan calankii Soomaaliland baan ku soo dhaweynaynaa dalkaan ku soo dhaweynaynaa waa mahadsantiin. bismillaahir rahmaanir rahiim sida suldaanka uu sheegay waa soo dhaweynaynaa wasiir ku-xigeenka magaalada ayaanu ku soo dhaweyn. wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo biyaha mudane Cabdisalaan Maxamed Xasan ayaa isaguna dhinaciisa uga mahadnaqay dadweynaha reer Hadaaftimo sida wanaagsan oo maamuuska leh ee ay u soo dhaweeyeen. suldaanka isimada cuqaasha dhalinyarada aqoonyahanka gabdhaha ururada bulshada rayidka ah ee reer Hadaaftimo waa aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa soo dhaweyntii qiimaha badan oo noo sameyseen. waxaan idin leenahay waad mahadsantihiin magaalada Hadaaftimo waa nagu soo dhaweyseen waana ku soo dhownahay ilaahay idinkii aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa wixii ilaahay idinkii hawla biidnillaahi kariim magaaladeena isla tagaynaa marka waad mahadsantihiin. intaa kadib ayaa waxa wafdiga loo soo galbiyay dhinaca gudaha magaalada Hadaaftimo waxaana wasiir ku-xigeenku kormeerkiisa ka bilaabay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Suldaan Cabdisalaan wuxuuna sidoo kale kormeer ku soo maray riiga biyaha ee magaalada Hadaaftimo xafiisyada ururada haweenka ee magaalada Hadaaftimo oo dhamaantood warbixino ka dhageystay. annagoo ka hadlayna oo idinku salaamayna Hadaaftimo magaaladayada gacno furan iyo gacalnimo iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waalaikum asalaam. bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u mahad celinayaa dhammaan bulshada ku dhaqan magaalada Hadaaftimo gaar ahaan dumarka oo maxaan ku yiraahdaa runtii waxa weeye soo dhaweyn fiican noo sameeyay waxaan u qaadanaynaa in maxaan ku yiraahdaa bulsho caafimaad qabta oo runtii si kal iyo laab leh dawladooda iyo maxaan ku yiraahdaa madaxdooda maxaan ku yiraahdaa u jecel si ayaan u qaadanaynaa ilaahay idinkii anagu haddaan dawladdii nahay waxa weeye waxaan ku maraynay meesha safarka iyagu ku saabsanaa kuurgelid loo kuurgelayo baahiyaha asaasiga ka jira mandaqada guud ahaan. dambeyntii waxa wafdiga iyo wasiirku u soo kicitimay dhinaca magaalada Badhan Siciid Cabdilaahi Tiij telefishinka caalamiga ee Somali Channel magaalada Hadaaftimo.